Filimkani wuxuu ku bilaabanayaa hooyo lagu magacaabo Tori taasoo subax hor raadinaysa wiilkeeda Brandon si uu iskuulka u aado. Markay guriga ka weedo waxay ugu dambeyn u dhaqaaqdaa dhanka beerta iyadoo magaciisa ugu yeeraysa. Gudaha markay gasho waxa uu ahaa mid aamusnaan badan balse leh dareen khariib ah. Waxyar kadibna Brandon ayaa sikadiis ugu soo booday meel sare oo gudaha beerta ka mid ah isagoo hooyadiis kanixinaya. Torina way qoslaysaa waxayna u sheegaysaa inuu sii weynaanayo inkastoo uu weligiis ahaan doono wiilkeeda yar. Waxyar kadibna waxaa soo gala aabihii Kelly kaas oo ka xanaaqaya in Brandon gudaha beerta joogo maadaama meeshaas uu ka mamnuuc yahay. Markuu hadalkaas dhaho kadib Kelly waxa uu si gaar ah u hubiyaa albaab hoose oo qufilan oo ku dhex yaala sagxadda beerta taas oo durba ku dareensiinaysa in meeshaas wax qarsoon ku duugan yihiin. waxyar kadibna Brandon waxa uu aadaya iskuulka halkaasna waxaa laga dareemayaa inuusan ahayn wiil si buuxda ula jaanqaadaya carruurta kale. intii casharka sayniska lagu jiray macalimaddu waxay ka hadlaysaa shinnida iyo xoonka balse Brandon waxa uu si ka duwan ardayda kale ugu jawaaba wuxuuna sharxayaa nooc cayayaan ah oo carruurtooda iyagoo koranin balse noolo kale ku inuu korsado. ardayda kalena waxay u arkaa hadalkiis wax laga yaabo halka qaarna xitaa ay ku qoslayaan. laakiin filimka halkaas waxa uu si hoosagaaga dareensiinaya in Brandon maskaxdiisa ay ka socdaan wax ka qoto dheer hadal yar oo iskuul ah. intii iskuulka socdo Brandon waxaa si gaar ah isha ugu haya gabar ay isku fasal yihiin oo lagu magacaabo Caitlin. iyadana waxay u muuqataa qofka keliya ee si degan ula hadlaya taas oo ka dhigaysa Brandon inuu si gaar ah wax xasuusta inkastoo uu aamusan yahay. markii uu guriga kusoo laabtay Tori iyo Kelly waxay isku dayayaan inay u noolaadaan sidii qoys caadi ah. laakiin guriga waxa uu bilaabaa inuu si tartiib ah isu bedelo. habeenkii iyadoo Tori jikada ku jirto waxay maqashaa dhawaaq hoose oo khariib ah oo ka imaanaya guriga dhexdiisa. laakiin wax yar kadib wuu joogsanayaa ayadana misraacinayso laakiin mar kale ayay banaanka codka maqlaysaa. markay codka daba gashana waxay u dhaqaaqdaa dhanka beerta. Torina waxay daba socotaa iyadoo walwal ka muuqda. codka meesha ka baxayana wuxuu noqonayaa mid sii xoogaysanaya taasoo ka dhigaysa jawiga mid aad u cabsi badan. markay beerta gudaha u gasho Tori waxay arkaysaa Brandon oo albaab beerta ku yaala luxaaya wuxuuna u muuqdaa sidii qof wax kale maamulayaan. tanin waxay noqonaysaa calaamadii weyn ee ugu horeysay ee muujinaysa in Brandon gudihiisa wax qarsoon kusoo buraarugayaan. subaxdii keena Tori waxay isku dayaysaa inay arrinta habeenkii u aragto wax caadi ah iyo in wax walba yihiin marxalad uu wiilkeedu maraayo. laakiin filimka waxa uu si cad kuu tusaya in waxyaabaha socda aysan ahayn wax yar oo qaangaarnimo ah. waxyar kadibna qoysku waxay u baxayaan maalinta dhalashada Brandon halkaas oo qaar ka mid ah familkooda ay kula dabaaldegayaan. jawigu marka hore waxa uu muuqday mid degan oo farxad leh balse hadiyad loo keenay Brandon ayaa wax walba bedelaysa taasoo ah qori la siiyey. Brandon si weyn ayuu ugu farxayaa laakiin aabihiis Kelly si adag ayuu ugu qaadaya isagoo u arkay inuusan weli gaarin da'daas. Brandon si aan hore looga baran ayuu ugu falceliyaa wuxuuna si xanaaq leh ugu adkeysanaya in hadiyadaas isaga loo keenay. xitaa marka aabihiis Kelly isku daya inuu si adag meesha uga kaxeeyo Brandon si aan caadi ahayn ayuu isku adkeynaya sidii inuusan ahayn cunug yar oo si fudud loo maamuli karo. waxaana meesha si cad looga dareemayaa in xanaaqiisa uu ku culus yahay xanaaq ilmo yar. Tori iyo Kelly waxay dareemayaan in wiilkooda uusan sidii hore ahayn. markii ay guriga kusoo laabtaan Tori weli waxay isku dayaysaa inay Brandon u aragto wiil yar balse Kelly waxa uu bilaabayaa inuu si dhab ah uga shakeeyo waxyaabaha ka socda gurigooda. waxaana xitaa la dareemaya in aabaha iyo hooyadu ay si kala duwan u arkaan wiilkooda. dhacdadaas kadibna maalinta xigtay qoysku waxay aadaan safar yar. Kyle waxa uu go'aansanaya inuu Brandon u kaxeeyo meel duur ah si uu u baro ugaarsiga islamarkaana uu waqti gaar ah ula qaato. maalintaasna si degan ayuu ku dhammaanaysaa habeenkiina qof walba uu seexanayaa balse arrimuhu halkaas kuma joogsanayaan. habeenkii Tori ayaa hurdada kasoo kacda waxayna ogaanaysaa in Brandon uusan joogin. dhanka kale Caitlin ayaa qolkeeda ku hurda balse si lama filaan ah laabtoobkeeda ayaa si keedis u shitma. iyadoo yaaban ayay diminaysaa balse mar kale ayuu shitmayaa markaana cabsi ayay dareemaysaa waxayna isku daydaa inay mar kale damiso. laakiin inta aysan dib u seexan waxay maqashaa dhaqdhaqaaq ka imaanaya dhanka daaqada. markii uu dhawaatana waxay arkaysaa Brandon oo daaqada geeskeeda saaran. Caitlin si cabsi leh ayuu qeylinaysaa. hooyadeed Erica ayaa si degdeg ah qolka soo gelaysa iyadoo weydiinaysa waxa dhacay. Caitlin waxay u sheegtaa inay indhaheedu ku aragtay Brandon laakiin markii la hubiyo qofna lama arko. isla waqtigaasna Tori iyo Kyle waxay bilaabayaan inay banaanka ka raadiyaan Brandon si lama filaan ah. Brandon ayaa gadaashooda kasoo muuqda waxuuna si fudud u sheegay inuu kaliya banaanka u baxay. maalinta xigtana Tori waxay iskuulka booqataa eedada Brandon taasoo ah la taliyaha ardayda iskuulka si ay uga hadasho arrimo ku saabsan Brandon. kadibna waxa uu soo dhaqaaqdaa dhanka Brandon waxayna arkaysaa isagoo sawiraya waxyaabo khariib ah. Brandon si dhaqso ayuu u qarinaya kadibna meesha ayuu ku tagayaa. habeenkii xigayna
Kyle waxa uu maqlaa buuq ka imaanaya xerada digaaga wuxuuna u maleynayaa inuu yahay xayawaan soo galay markaas ayuu u baxaa si uu u hubiyo. Laakiin markuu gaaro wuxuu arkaa Brandon oo dhex taagan digaaga si la yaab lehna u fiirinaya halka digaagii ay si cabsi leh u qaylinayaan. Kyle-na wuxuu weydiinayaa wax uu halkaas ka qabanayo balse Brandon wax jawaab ah ma bixinayo asigana meesha ayuu ka kaxaynayaa. Saacado yar kadibna Kyle mar kale ayuu maqlaa qaylada digaaga. Markuu tagana wuxuu arkayaa in digaagii oo dhan la laayay. Si degdeg ah ayuu u kiciyaa Tori wuxuuna u sheegaa waxa dhacay. Torin waxay u malaynaysaa inuu yahay xayawaan mar kale soo laabtay. Laakiin Kyle wuxuu aaminsan yahay in Brandon uu ka dambeeyo maadaama uu horay u arkay isaga oo meesha jooga. Laakiin Tori ma aqbalayso arrintaas. Maalinta xigtayna iskuulka waxay ciyaarayaan ciyaar ay ardaydu isku qabtaan marka qofka gadaal isu tuuro. Markii la gaaro Brandon ciyaar silma filaan ay isku bedeshaa Caitlin ayaana si ula kac uga leexata Brandon asigana dhulka ayuu ku dhacayaa. Ardayda kalena way ku qoslayaan macalinkana wuxuu ku amrayaa Caitlin inay caawiso. Laakiin iyadu waxay ku doodaysaa inuu yahay qof anshax xun. Brandon waxa uu diidayaa hadalkaas macalinkana waxa uu ku qasbayaa Caitlin inay caawiso. Brandon xanaaqiisa ayuu xakamay waanaya waxa uuna si xun u jibinayaa gacanta Caitlin. Markii hooyada timaado waxay si cad u eedeynaysaa Brandon iyadoo ku dayayso inuu yahay wiil khatar ah. Aabaha Brandon Kyle waxa uu isku dayayaa inuu hadalka dejiyo. Balse maamulka iskuulka waxa uu go'aaminayaa in Brandon la ganaaxo 2 maalmood. Laakiin Mary kuma qancayso waxayna xitaa sheegtaa in Brandon habeen hore uu gurigooda yimid. Tori oo hadalkaas wadkaysa weyday waxay si degan u difaacdaa wiilkeeda waxayna sheegtaa inay ka xun tahay wixii dhacay kadibna meesha ay ka tagaysaa. Habeenkii markii ay guriga joogaan Tori waxay Kyle u sheegtaa in wixii dhacay aan la iska indhitiri karin. Waxaana xasuusataa haween hore inay Brandon ka heshay isagoo ku sugan maqaasiinka. Kyle-na wuu yaabaya wuxuuna weydiinayaa haddii Brandon uu ogaaday sirta halkaas ku jirta. Torina waxay u sheegtaa inuusan haynin balse uu isku dayayo inuu furo albaabka hoose. Kyle-na waxa uu la yaabaya sida uu ku ogaaday meeshaas. Isla waqtigaasna Brandon waxa uu galayaa xaalad qariib ah wuxuuna bilaabayaa inuu ku hadlo erayo aan la fahmi karin. Isagoo u muuqda mid hurdo ku socda wuxuuna u dhaqaaqayaa dhanka maqaasiinka markuu gaarana wuxuu dul istaagay albaabka hoose ugu dambeynna waxa uu awoodayaa inuu jebiyo. Tori oo aragtay iftiinka baxaya gudaha maqaasiinka ayaa soo cararta. Markii gudaha gashan waxay arkaysaa Brandon oo hawada kor u taagan isagoo ku hadlaya luqad aan la fahmi karin. Markay isku dayday inay qabatana Brandon waxa uu ku dhacayaa gudaha godka isagoo ka dhaawacmay gacanta. Torin waxay isku dayaysaa inay dejiso Brandon balse markaa wax walba way ka baxeen xakameynta. Brandon wuxuu si toos ah u weydiiyay aniga kumaan ahay. Torin waxay si degan ugu jawaabtaa waxaa tahay wiilkayga laakiin Brandon kuma qalan wuxuuna sii weydiiyaa wiilkan qariibka wax uu yahay iyo meesha uu ka imaaday. Halkaas ayay Tori ka garanaysaa inaysan mar dambe qarin karin sirta waxayna bilaabaysaa inay runta u sheegto inay muddo dheer ku ducaysanayeen ilmo balse aysan weligood helin. Kadibna habeen ka mid ah wax qariib ah ay ku soo dhaceen keenta u dhow gurigooda. Markay halkaas gaareenna waxay heleen wiil qariib ah gudahaasna waxaa ku jiray Brandon oo aad u yar. Markaas kadibna inay korsadeen iyagoo u arkay hadiyad ayna rumaysnayn inuu sabab gaara u yimid halkan iyo inuu samayn doono wax cajiib ah. Laakiin Brandon si cad ayuu u diidaa wuxuuna yiraahdaa been baad ii sheegtay. Torin waxay isku dayaysaa inay sharaxdo inay kaliya doonayaan inay daryeelaan iyo inay mar walba qorsheynayaan inay runta u sheegaan. Laakiin hadda waa goor dambe Brandon si caro leh ayuu ku dhaqaaqaa markuu gudaha guriga galana wuxuu bilaabaa inuu burburiyo wax kasta isagoo ku qeylinayo waan idin nacbahay. Kyle ayaa maqla buuqa wuxuuna weydiiyaa Tori waxa meesha ka socda. Torin waxay si cabsi leh uga jawaabtaa wuxuu helay sirta. Dhanka kale Brandon waxa uu ka baxayaa guriga wuxuuna bilaabayaa inuu ku hadlo erayo ay ka mid yihiin qaado dunida. Habeenkaas guriga Caitlin waxay ku jirtaa qolkeeda iyadoo isticmaalaysa laptopkeeda. Silma filaana laptopka ayaa iskiis u damaya. Markii dib u eegtana waxay aragtaa Brandon oo qolka kula jira iyadoo yaaban ay weydiisaa wax uu halkan ka qabanayo. Brandon si degan ayuu u yiraahdaa waxaan ku keenay uba waxaana rabaa inaan kula hadlo. Wuxuuna u sheegay inuu ogaaday inuu ka duwan yahay dadka kale inay iyadu tahay mid ka mid ah dadka yar ee fahmaya balse maalin qof walba uu ogaan doono waxa uu yahay. Caitlin waxay uga jawaabaysaa hooyadii waxay ii sheegtay inaan kula hadlin. Brandon wuxuu si qabo u yiraahdaa waan fahmay. Silma filaana ayuu ka qarsoomaa qolka isagoo ubaxa kaga tagay laptopka korkiisa. Dhanka kale hooyada Caitlin Eric waxay ku jirtaa maqaayadda ay ka shaqeyso waxayna macsalaameynaysaa ninkeeda Gary. Kadibna gudaha ay ku laabataa si ay shaqadeeda u sii wado. Laakiin waxaan caadi ahayn ayaa bilaabanaya waxayna muraayadaha ka arkaysaa calaamado qariib ah. Halkan waxay bilaabayaan inay damaan marna shidmaan ayadana cabsi ayaa ku sii kordhaysa. Silma filaana muraayadaha nalka ayaa qarxa jajabka dhaladana waxa uu ka dhaawacaa isheeda. Markay isku dayday inay jajabka iska saarto waxay aragtaa wax horteeda taagan laakiin aysan si fiican u arki karin. Cabsi darteedna waxay isku xirtaa qolka keydka. Laakiin qofka ma joojinayo si xoog leh ayuuna u soo jibiyaa ugu dambeynna halkaas ayuu ku dilaa. Subaxda xigtayna Tori iyo Kyle waxay joogaan jikada. Waxaana kadibna Brandon ayaa soo galay. Kyle wuxuu si caadi ah ugu sheegaa Brandon maanta inuu la kulmi doono la taliyaha iskuulka eedadiis Mary. Dhanka kale baaritaanka booliiska waxay baarayaan goobta dilka waxayna ogaanayaan inaan meesha waxba laga dhicin iyo inaysan jirin
jirin wax cadeen ah, laakiin muraayadaha ay ka helayaan calaamad qariib ah. Iskuulka Brandon waxa uu la kulmaa eedadiis Marilyn waxayna bilaabaysaa inay weydiiso su'aalo sida uu yahay iyo wax maskaxdiisa ka socda. Laakiin Brandon jawaabihiis waa mid gaaban wuxuuna uga jawaabaa inuu ogaaday inuu ka duwan yahay dadka kale iyo inuu ka imaaday meel kale dadka kalena uu ka sareeyo. Marilyn waxay weydiinaysaa sida uu arko waxa uu Caitlin ku sameeyay. Brandon wuxuu yiraahdaa mararka qaar marka wax xun dhacaan waxay leeyihiin sabab wanaagsan. Marilyn waxay uga jawaabaysaa inay shaqadeedu tahay inay la taliso ardayda laakiin aysan u fududeyn karin inuu iskuulka ku soo laabto maadaama uusan qiran karin dambiga uu geystay. Berina ay dambi baaraha Sheriff u sheegi doonto. Sidoo kale waxay u sheegaysaa inay siinayso fursad inuu mar kale la hadlo. Habeenkii Kyle waxa uu la joogaa asxaabtiisa iyo ka hadlaya wixii ku dhacay Erica. Laakiin lama filaana mid ka mid ah ayaa weydiiyay su'aaltaas waa in Brandon uu ka dambeyn karo dilka Erica maadaama uu Brandon horey gacanta uga jabiyay gabadha Erica. Kyle si degan ayuu u diiday arrintaas wuxuuna caddeeyaa in tani aysan ahayn wax lagu kaftamo. Waxaana kadibna Nuux ayaa go'aansanaya inuu guriga aado. Dhanka kale Meryl waxay joogtaa guriga waxayna maqashaa albaabka oo la garaacayo. Markii furtana waxay arkaysaa Brandon wuxuuna u sheegay inuu rabo inuu kala hadlo arrinta ay sheegtay ee ahayd inay Sheriffka u gudbin doonto dhibaatada uu Caitlin u geystay. Haddana uusan ka quumameyneynin. Brandon waxa uu sheegay inaysan fiicnayn inay u sheegto. Balse Meryl waxay ku adkeysanaysaa inay shaqadeeda daacad u noqoto waxayna ku amraysaa inuu guriga aado. Brandon wuu ogolaanaya waxaana kadibna alarmiga guriga ayaa qeylinaya. Markii hubisana qofna ma aragto sidaas darteed way seexanaysaa. Intaas kadibna ninkeeda Nuux ayaa imaanaya balse wuxuu gudaha ku arkaa Brandon oo armaajada ku dhuumanaya. Markuu weydiin wax halkaas ka qabanayo Brandon waxa uu sheegay in Meryl ay ka caawinaysay homework iskuulka. Nuuxna wuu ka xanaaqaya wuxuuna go'aansanaya inuu guriga u kaxeeyo. Inta aysan gaariga raacin Brandon waxa uu ka dalbaday inuusan waalidkiisa u sheegin. Laakiin Nuux ma aqbalayo wuxuuna isku dayay inuu gaariga xoog ku saaro. Si ma filaana Brandon waxa uu adeegsada awoodiisa wuxuuna meel fog ku tuuraya adeerkiisa Nuux. Nuux waxa uu isku dayay inuu gaariga wado balse gaariga ma shaqaynayo. Markuu hortiisa eegana waxa uu arkayaa Brandon oo hortiisa taagan. Asigana waxa uu isku dayay inuu baxsado laakiin ma awoodayo. Brandon waxa uu kor u qaadayaa gaariga isagoo adeegsanaya awoodiisa halkaas ayuuna ku dilayaa. Wuxuuna kaga tagayaa calaamad qariib ah. Dhanka kale Tori waxay wacaysaa Meryl kadib markii Brandon uusan guriga imaanin. Waxa kadibna waxa soo galaya Brandon isagoo sheegaya inuu la ciyaarayay asxaabtiisa. Markii la weydiinay fanaanadiis waxa uu sheegay inuu jeexmay intuu ciyaarayay. Kadibna uu gacanta ku soo qaatay. Wuxuu intaas ku dareeyay inuu daalan yahay oo uu seexanayo. Laakiin Tori iyo Kyle way ka shakeenayaan waxayna dareemayaan inuu been sheegayo. Kyle wuxuu soo jeeday in Brandon loo geeyo khabiir balse Tori si adag ay uga hortimaadaa. Habeenkii sakhraha Kyle wuxuu ogaanaya in Tori aysan sariirta jiifin. Wuxuuna maqlaa dhawaaq ka imaanaya keenta markuu halkaas gaarana wuxuu arkaa Tori oo kor taagan shay guduudan oo gacanta ku haysa cunug yar. Balse muuqaalka oo si cabsi leh ayuu isku bedelaa. Kyle lama filaana ay ugu tooso wardada wuxuuna ogaanayaa inay riyo ahayd. Isla waqtigaasna Tori waxa soo wacaysa Meryl oo sheegaysa in ninkeeda Nuux uu dhintay. Markii isbitaalka gaarana waxay u sheegaysaa inuu shil galay kadib markii deere ka hortimay. Dhakhaatiirtuna waxay baarayaan inuu khamri cabay balse Kyle waxa uu caddeynaya inuusan cabin khamri badan. Meryl waxay sidoo kale sheegaysaa in Brandon uu xalay yimid taasoo dhalinaysa shaki cusub. Markay guriga ku laabtana waxay isku dayeen inay Brandon u sheegaan dhimashada adeerkiisa Nuux. Brandon wax murugo ama muujinaya wuxuuna si degan ugu jawaabaa waa hagaag. Markii la weydiinay inuu fahmay waxa dhacay wuxuu si qabow ugu jawaabaa ma waxaad rabtaan inaan ooyo. Kyle si toos ayuu eedeynaya inuu xalay joogay guriga Meryl sidoo kale inuu sheegay habeenka Arbacada meesha uu jiray. Isqabqabsi ayaa dhex mara ugu dambeynna Brandon wuxuu si xoog leh u tuuraa aabihiis. Toran waxay ku amraysaa inuu qolkiisa aado. Kadib Kyle waxa uu bilaabayaa inuu raadiyo shaadhka Brandon uu xalay qarinayay. Markii weerarna waxa uu arkaya inuu dhiig leeyahay balse isla markii Brandon ayaa qolka soo galaya. Kyle waxa uu isku dayay inuu qariyo isagoo uu sheegay inuu kaliya u imaaday inuu raali geliyo. Wuxuuna fanaanad tusaya Tori isagoo uu sheegay dhiigan inuu yahay midka Nuux. Laakiin Tori ma aqbalay shaqada Kyle waxaana si xanaaq leh uu sheegaysa sidee ayuu wiil 12 jir ah u dili karaa qof weyn kadibna ugu dhigi karaa shil. Kyle wuxuu jawaabayaa inaysan garanaynin nooca awood dhabta ah ee Brandon leeyahay sidaas darteed wax walba ay suurtagal noqon karaan. Torina weydiidaysa arrintaas iyadoo xanaaqsan ayayna meesha ka dhaqaaqaysaa. Habeenkaas Kyle wuxuu sheegayaa inuu bari Brandon uu ka xin doono ugaarsi. Maalinta xigtana Kyle iyo Brandon waxay u baxayaan keenta. Dhanka kale dambe baaraha wiil wuxuu baarayaa kiiska Erica iyo dhimashadii Nuux. Inta uu baaritaan ku jiro wuxuu ogaanayaa in labada goobood ee falka ka dhaceen laga helay calaamad isku mid ah. Keenta gudaheeda Kyle wuxuu arkayaa Brandon oo mashquulsan wuxuuna go'aansanayaa inuu fursadaas ka faa'iideysto. Wuxuu madax kaga dhufanayaa xabad laakiin Brandon wuxuu u dhaqmayaa sidii inaysan waxba ku dhicin. Kyle wuxuu isku dayayaa inuu mar kale toogto balse Brandon si lama filaan ah ayuu ku kharsamaa indhihiisa. Taas darteedna Kyle wuxuu isku dayayaa inuu baxsado laakiin Brandon ayaa soo weeraraya ugu dambeyntiina halkaas ayuu ku dilayaa. Dhanka kale dambe baaraha wuxuu yimaadaa guriga Tori wuxuuna weydiiyaa haddii Brandon uu guriga joogo. Tori waxay u sheegaysaa inuu ugaarsi ula baxay aabihiis.
aabihiis kadib wuxuu tusayaa calaamadii laga helay goobihii Erika lagu waayay iyo halka Nuux uu ku dhintay. Turan waxay u sheegaysaa inaysan waxba ka aqoonin inkasta wejigeeda laga dareemayo inay wax qarinayso. Damibaarana wuxuu ka dalbanayaa inuu guriga baaro balse Tor si degan ay ugu sheegaysaa inuu baxo. Markuu meesha ka tagana kadib Tor waxay bilaabaysaa inay baaritaan samayso. Waxayna gelaysaa qolka Brandon halkaasna waxay ku arkaysaa sawiro cabsi leh oo si toos ah ugu eg dilalkii Erika iyo Nuux. Halkaas ay ka fahmaysaa in Brandon dhab ahaantii ka dambeeyo wax walba. Iyadoo argagaxsan ay wacaysaa Kyle laakiin Brandon ayaa taleefanka ka jawaabaya. Markii weydiisay halka Kyle uu joogo Brandon wuxuu si qabo uga jawaabaa inuu dhintay. Kadib wuxuu sheegayaa inuu hadda guriga kula sugan yahay isla markiiba Brandon wuxuu bilaabayaa inuu guriga burburiyo. Turan waxay wacaysaa booliiska waxayna ka dalbanaysaa gargaar degdeg ah. Waxaar kadibna booliiska ayaa imaanaya guriga laakiin markay arkaan burburka meesha ka dhacay aad ay u yaabayaan. Waxayna cod dheer uga yeerayaan Tor si ay banaanka uga soo baxdo. Isla markay albaabka soo gaartana Brandon wuxuu si lama filaan ah u dilayaa dambibaaraha. Sarkaaladii kalena waxay Tor ku amraysaa inay dib ugu laabato guriga iyadana waxay dalbanaysaa gurmad dheeraad ah. Laakiin waxaar kadib Brandon ayaa horteeda kasoo muuqanaya si arxan daran ayuuna u dilayaa. Turan waxay awoodaysaa inay baxsato waxayna u cararaysaa dhanka maqaasiinka si ay ugu dhuumato. Markii gudaha gashan waxay halkaas ka helaysaa meedka Erika oo meesha lagu qariyay. Waxay sidoo kale helaysaa bir fiiqa markaas ay go'aansanaysaa inay Brandon disho. Waxay cod dheer ugu yeeraysaa si ay dabin ugu dhigto. Markuu yimaadana waxay u sheegaysaa inay weli jeceshahay inuu mar walba wiilkeeda ahaan doono. Laakiin si lama filaan ah ay isku dayaysaa inay birta ku muddo. Brandon waxa uu qabanayaa gacanteeda ka hor inta aysan ku mudin. Kadibna cirka ayuu ula duulaa dhulka ayuuna kusoo tuurayaa. Isla waqtigaasna Brandon waxa uu arkayaa diyaarad cirka maraysa. Muuqaalkan waxa uu isku bedelayaa subaxdii xigtay markay baarayaashu yimaadaan goobta waxaa la sheegayaa in diyaarad dhacday ay dishay dhammaan dadkii saarnaa. Qoyskii halkan ku noolaana dhammaantoon inay wada dhinteen kaniina Brandon uu ka badbaaday. Ani weydiinin waxa dhacay sababtoo aan xitaa ma aqaano. Haddii faantay waxa dhacayna kumantii ku soo qor. Filimkeenan waxa uu dhamaanaya adigoo muuqaalka laag sare YouTube-keenana ku soo biiray. Inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xigo maca salaama.